بسم الله السلام عليكم ورحمة الله كسر هذا كورس كان آدك وعجيبك تاسو aad ku baran doonto aasaaska kombiyuutarka iyo sidii aad u adeegsan lahayd barnaamijyada loo yaqaano Office-ka waa barnaamijyo caalamka caanka ah sidoo kalena Soomaalida xiliyadan dambe ay aad u adeegsato iyadoo xiliyadii horena ay dadku baran jireen laakiin xog badan ayna ka haynin waxaan rajeynayaa koob iyo 70 kan cashar ee ku dhex jira koorsadan inaad ka bogan doontid cutub walbana aad ka kororsan doontid aqoon aad u baaxad weyn waxay ka koobnaan doontaa koorsadan hadduu alla weyn qadaro 7 cutub 7daas cutub cashar walba ku jirana waa mid adiga faa'iido weyn ku leh waxaan ugu horeyn doonaa cutubka koobaad kaas oo noqonaya hordhac ama introduction aad ku baran doontid horta marka hore computer muxuu yahay sidoo kale computerka muxuu ka kooban yahay qaybaha computerka isagana uu marka u qaybsamo ama noocyada computerka uu leeyahay khasaaraha iyo faa'iidada uu computerku yeelan karo iyo waxyaabaha computerka ka laalaada ee loo yaqaano peripheral devices marka shantaas cashar ee hore waa hordhici waxa ku xigi doona marka in gudaha aad u geshid oo adeegsiga computerka aad baratid cutubkaas labaadna wuxuu noqon doonaa marka getting started computer in la guda galo marka computerka iyo barashadiisa cashar koowaad waxa uu noqon doonaa inaan wax ku ogaano oo aan barano desktopka waxa uu yahay taskbarka sidoo kale waxa uu yahay file iyo folder ayaan sidoo kale kala ogaan doonaa iyagana waxa ay yihiin waxa sidoo kale casharka labaad uu noqon doonaa in la sharaxo keyboardka aan adeegsan doono oo xaraf loo dul istaago furo kasta oo kamid ah marka keyboardka magaciisa iyo shaqada uu qabto ayaad isla baran doontaa waxaan rajeynayaa casharkaas marka aad ku guda jirtid in dhigtaada iyo maskaxdaadaba si fiican aad u furtid wax dheeraad ahna aad raadisid kaliya casharkaas kuma koobnaan doono dhammaan casharada intaas waan ka codsanayaa oo waan rajeynayaa hadduu alla weyn qadaro waxa ku xigi doona casharka saddexaad noqon doona cutubkaas labaad sidii star button-ka iyo start menu-ga u kala ogaan lahayd waxay kala yihiin star button muxuu yahay start menu-na isagana maxuu yahay waxa ku xigi doona start menu-ga marka aad soo gasho gudihiisa shaqadiisa maxay tahay inaad ogaatid sidoo kale waxa inta ku xigi doona casharka shanaad noqonaya muxuu yahay ama muxuu u kala qaybsamaa mouse-kaaga badhanadiisa iyo isaga laftirkiisaba sidoo kale waxaan ogaan doonaa sida loo sameeyo marka folder magac sida looga bedelo sida loo delete garayo sida cut iyo copy loogu sameeyo folderkaaga sida loo qariyo loo soo muujiyo cabirkana looga bedelo desktop icons-kaaga ama waxyaabaha ku saaran computerkaaga shaashadiisa intaas markaan isla ogaano sidoo kale waxaan isla arki doonaa sidii automatic aad ugu hagaajin lahayd iconadaada sidoo kalena aad mid walba godkiisa ugu habeen lahayd marka waa casharaad u xiiso badan aan rajeynaa insha Allah taala in wax badan aad ka kororsan doonto intaas markaynu isla ogaano isla barano sidoo kale waxaan arki doonaa sidii aan u kala sooci lahayn desktop icons-keena qaab muuqaalkoodana aan u hagaajin lahayn sidoo kale waxaan arki doonaa in aan markaa background-ka ama dhabarka dambe ama shaashadeena sawirka saaran sidii aan ku bedeli lahayn sida muuqaalka computerkeena oo dhan aan uga bedeli lahayn orientation-ka iyo sidoo kale qaab muuqashada computerkeena hadduu noqon lahaa jiif iyo joogba sidii aan u maamuli lahayn sidii iftiinkiisa sidoo kale iyo cabirkiisa iyo layout-ka ama qaabka u samaysan computerkeena aan wax uga bedeli lahayn shaashadiisa iyo wixii la mid ah ay arintaas insha Allah ka arki doontaa ayaan casharka gudihiisa sidoo kale waxa aan arki doonaa sidii wixii aad tirtirtay marka aad dib ula soo laaban lahayd iyo sidoo kale sida cabirka wax uga bedeli lahayd sidoo kale aad u qarin lahayd u soo muujin lahayd taskbarkaaga search box-ka iyo start button-ka ayaa isagana wax ka baran doona casharka ugu dambeeya cutubkaas labaad aan ku soo gabagabeyn doono wuxuu noqon doonaa sniping tool oo ah barnaamij shaqada screenshot-ka uu qabto oo kale ku qabanaya intaas marka waxaan kaga soo baxnay Windows-ka waxaan geli doonaa marka barnaamijyada Office 2019 marka waa mid kamid ah versionadii ugu dambeeyay 2019 qaar ayaa ka dambeeyay sida 2000 iyo maxaan ku dhahday 20 oo kale laakiin hadda waxaan isla arki doonaa waa 2019 oo aad u cajiiba marka ugu horeyso waxaan isla ogaan doonaa sidii bilaash aad ula soo deg lahayd sidoo kale sidii aad ugu shuban lahayd sidoo kale sidii marka barnaamijyada kala duwan marka loo yaqaano Office-ka aad u soo saaran lahayd shortcut-kooda desktop-kaaga sida ugu dhajisan lahayd start button-ka waxaan ka wadaa iyo start menu-ga intaas aad ugu dhajisan lahaydna waa isla arki doonaa laakiin wuxuu ku koobnaan doonaa MS Word barnaamijyada kale marka aad gaartidna inkastoo cashar walba ama maarta cutub walba arintaas aan ku arki doono laakiin way ka wada siman yihiin intaas sidoo kale waxaan isla arki doonaa haddii ay cut kaaga dhacdo
shortcutka sidii aad markaa u samaysan lahayd inaad dib u soo celisid oo aad markaa u soo badbaadsid iyo sidoo kale haddii aad ka maaranto taskbarka sidii aad uga fujin lahayd marka intaas aan isla soo ogaano hordhaca MS Word-ka ah waxaan iman doonaa gudihiisa waxaan isla arki doonaa sida warqad cusub loo samaysto loo save garaysto mid hore u jira loo soo furto sidoo kale recentiga ama dhawaan meesha loo yaqaano sida looga bixiyo waxaan oo dhan cashar ayaa ku arki doontaa hadduu alla weyna qadaro marka koorsadan aad gudaha u soo gasho marka intaas aan isla aragno waxaan isla arki doonaa haddana wajahada MS Word-ka sharaxaadeeda mid walba iyo magaceeda iyo maxaan ku radaa waxa loo yaqaan iyo shaqada ay qabtaan intaas wixii ka dambeeyo marka haddana waxaan arki doonaa sida la iskaga soo xiro barnaamijkaaga iyo sida password la ugu xirto oo loo ilaashado waxaan marka aan geli doonaa shaqadii iyo in aan adeegsano oo ka shaqaysino MS Word-keena anagoo marka qaadan doona home tabka iyo shaqooyinkiisa marka ilaa iyo 4 qaybood ayuu u qaybsamayaa sidoo kale insert tabka isagana ilaa iyo wuxuu noqonayaa 4 qaybood design tabka iyo layout tabka ayaan ku soo gabagabeyn doonaa anagoo ka ugu dambeeya aan qaadanayna uu noqon doono references review iyo view tab intaas marka waxaan noogu soo ilaalay cutubkeenii saddexaad ee MS Word-ka iyo ka maarta sharaxay ama faahfaahin ka bixinay office-ka guud ahaantiisa marka waxaan hadana soo gudagari doonaa cutubkeena afraad kaas oo aan ku baran doono PowerPoint-ga markuu sahlan yahay waa barnaamij aad u cajiib ah haddii Word-ka marka si fiican aad u soo dhigatid dhammaan taabyadaas aad meel soo wada saartid barnaamijyada kalena way ku sahlanaan doonaan adeegsigooda marka hordhacaya marka hore ka bixin doonaa home tabka ayaan gudagali doonaa insert iyo maarta design tabka ayaan marka takhalusi doonaa transition iyo animation oo isku soo dhow xagga shaqo ahaan inkastoo ay ku kala duwan ayaa isagana aan qaadan doonaa slideshow review iyo view tab ayaan ku soo gabagabeyn doonaa cutubka shanaad waxa uu noqon doonaa publisher marka isagana waxaan ku arki doonaa marka hore hordhici iyo inaan sameeyno business information in xog aan u sameeyno ganacsi sidoo kale in qoraal aan soo gelino anagoo wadooyin kala duwan adeegsanayna in aan adeegsan karno waxyaabo diyaarsan ama templates iyo sidoo kale mid cusub in marka aan soo gashan karno oo kadib wixii aan rabno aan ka badbadali karno ugu dambeyn waxaan isla arki doonaa in aan naqshadeyn karno shahaado waa tusaale adaa marka hadhow isii wadaayo ID card naqshadeyn kartaa sidoo kale waxaad naqshadeyn kartaa business card iyo wixii la mid ah ka marka waa tusaale cutubka ma aragtaa lixaad isagana waxaan ku qaadan doonaa MS Excel-ka ama Excel waxa loo yaqaan hordhac ayuu noqon doonaa cashirkiisa koowaad kalabaadna waxaan isla ogaan doonaa erayo la adeegsada Excel-ka marka la joogo iyo sidoo kale xogan muhiim ah sidoo kale waxaan arki doonaa home tabka gaar ahaan groupka ama blogga loo yaqaano saleska qaybtiisa koowaad qaybtiisa labaad ilaa qaybtiisa saddexaad intaas markaan kasoo dhamaano isla home tabka anaga ku jirna style iyo number groupka ayaan isla arki doonaa shaqooyinka inoo qaban karaan alignment group ayaan kusoo gabagabeyn doonaa home tabka insert tab page layout iyo formulas tab ayaana qaadan doonaa cashirkeena sideedaad in marka aan wax isku geeno wax kala goyno isku dhufano sidoo kale isku qaybino ayaan halkaas ka arki doonaa anagoo qaacidada iyo sida loo sameeyana isla arki doonaa sidoo kale waxaan ku soo gabagabeyn doonaa in aan helno resultiga yani qofkan wuu dhacay iyo wuu baasay fail and maxaan ku raday pass waxa loo yaqaano iyo grade-ka qaacidada lagu helo yani qofkan A oo ku baasay B oo ku baasay C oo ku baasay ama B oo ku baasay T oo ku baasay J oo ku baasay X oo ku baasay ama wuxuu ku dhacay maxaan ku radaa X ama wuxuu ku dhacay E yani waa taqaana ayaa rajeynaya qodobadaas waxaan ku soo gabagabeyn doonaa course-keena MS Access-ka kaasoo hordhac marka hore aan ka qaadan doono table aan sameyn doono kadib aan soo furan doono iska soo xiri doono magaca ka bedeli doono copy ku sameyn doono sidoo kale aan iska dhigid garayn doono table-ka macnaha intaasoo wax waa waxyaabaha ku suura gelinaya inaad shaqo ka qaban karto table-kaaga waxaan ku soo gabagabeyn doonaa files waxa loo yaqaan oo ku baran doona cashirkeena iyo recordingska ina edit ku sameyn karto wax ka bedeli karto sidoo kale in table-kaaga isagana wax ka bedeli karto iyo in aad sameyn karto object waxyaabaha loo yaqaano oo marka ilaa 3 wax oo isku ilaa 4 wax isku tagay loo yaqaano waxa uu ku soo gabagabeyn doonaa inaan kala socno kala shaandheyno waxyaabaha xogta ah ay noogu jira marka database-keena gaar ahaan table-keena waxa ku soo gabagabeyn doonaa cashirka ugu dambeeya noqon doona koorsadan in password aan ku xiran karno barnaamijkeena MS Access-ka waxaan rajeynayaa koorsada marka aad qaadatid in wax badan Ilaahay kugu taro si aadna ummadda hadhow aad ugu anfici karto iibso ka faa'iideyso ummad badan marka la wadaag Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu wada anfac dhamaanteen ajarna inaga siiyo assalaamu calaykum wa rahmatullah